waxaad ku ogtahay qisada shakhsiga isagoon hadal ka qosliyey malaayiinta dadka ku nool daafaha caalamka. waa tiktoker, youtuber iyo weliba muuqaal sameeye. magaciisa dhabtayna waa Khaby Lame. wuxuu u dhashay dalka Senegal sanadu markay ahayd 2000 bishii 3 halkii da'diisu maanta tahay 24 jir. wuxuuna caan ka noqday bartan TikTok sanadu markay ahayd 2020 wuxuuna haystaa taageerayaal kor u dhaafaya 163 milyan. haddaba intuusan shaqadan bilaabin wuxuu ahaa askari. kadib markii uu muddo badan askari ahaa waxaa loo wareejiyey dalka Talyaaniga. wuxuuna ka shaqayn jiray shaqooyinka yaryar hoose kuwaasuu ka heli jiray lacag yar oo uu ku maareeyo nolol maalmeedkiisa. haddaba sanadu markay ahayd 2020 waxaa adduunka ka dilaacay xanuunkii dilaaga ahaa ee COVID-19 amba coronavirus. Khaby Lame wuxuu ahaa nin shaqadiisa yareed ee uu ka shaqeeyay